kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararka maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona ahlu sunna oo la wareegtay gacan ku haynta Gurceel Mareykanka iyo qaramada midowga oo si adag u cambaareeyay go'aankii Itoobiya lamaana lagu xukumay xabsi daa'im ismaamulka Meru ee dalka Kenya daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan wararka naga soo gaaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamo taabacsan hoggaanka ahlu sunna wal jamiica ay la wareegeen magaalada iyadoo uusan ka dhicin wax dagaal ah ciidamada ahlu sunna ee la wareegay magaalada Gurceel ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen dhanka deegaanka Godwill oo ay saakay ka soo gaareen magaalada Gurceel waxaa magaalada isaga baxay ciidamo boolis ah oo ka tirsan maamulka Galmudug waxaa la xiray inta badan goobaha ganacsiga ee magaalada iyadoo jidka ay isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan oo ku faraxsan in ahlu sunna ay dib ula wareegto Gurceel ciidamada ahlu sunna ee gudaha u galay dhammaan xurumaha kala duwan ee magaalada sida saldhigyada booliska madaxda sarsare ee maamulka Galmudug iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug wali kama ay hadlin tilaabada ciidamada ahlu sunna ay kula wareegeen deegaanada Gurceel ee gobolka Galgaduud ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Galmudug oo ka ruqaansaday magaalada Dhuusamareeb ayaa ku wajahan Gurceel sida ay ilwareedyo lagu kalsoon yahay inoo xaqiijiyeen Macallin Maxamuud Sheekh Xasan iyo Sheekh Shaakir ayaa dabayaaqadii bishii September waxa ay ciidamo ku aruurinayeen deegaanka Bohol oo ka tirsan Dhuusamareeb iyaga oo isku dayay inay qabsadaan mar kale Galmudug haatan xogyaha guud ee qaramada midowga Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ula yaaban yahay go'aanka dawladda Itoobiya inay dalkeeda ka ciiriso 7 sargaal oo sarsare oo ka tirsan qaramada midowga Guterres oo cambaareeyay tilaabadan ayaa sheegay inay ku soo aadayso 2 maalmood kadib markii madaxa gargaarka qaramada midowga Master Martin Graf oo sheegay in 100 kun oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga Tigray ay u badan tahay inay macluul soo food saarto aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay tilaabada ay qaadayso dawladda Itoobiya waxaan si adag u cambaareynaa go'aanka Itoobiya ay ku eriyayso 7 saraakiil oo ka tirsan qaramada midowga oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bini'aadanimo ee Mareykanka waxa uu ku baaqay in go'aankani laga noqdo kama labayn doono inaan si degdeg uga jawaabno tilaabadani ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken 7 sargaal oo ay ku jiraan madaxda UNICEF iyo madaxda xafiiska qaramada midowga ee isku dubidda arrimaha bini'aadanimo ayaa la siiyay 72 saacadood inay dalka uga baxaan kadib markii xukuumadda Itoobiya ay sheegtay inay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya maxkamad ku taala ismaamulka Meru ee dalka Kenya ayaa ku xukuntay lamaana xabsi daa'im kadib markii lagu helay dambi ah kala gudbinta droogada noocyada xashiishka garsooraha sare ee maxkamadda Meru Thomas Marguri Mwingi ayaa James Marua iyo xaaskiisa Frida Krimi xukunkani ku riday lamaanaha ayaa la xiray bishii 11aad ee sanadkii hore 2018 iyaga iyo 3 qof oo kale oo wax dambi ah lagu waayay waxaa lagu eedeeyay inay si wada jir ah u kala gudbinayeen maandooriyaha nooca xashiishka oo culeyskiisu ahaa 103 kilogram isla markaana qiimihiisu lagu sheegay 3.9 milyan oo shilinka dalka marka laga soo tago xukunka xabsi daa'inka waxay sidoo kale lamaanaha maxkamaddu u soo bandhigtay xabsi 5 sano ah ama bixitaanka ganaaxa lacag dhan 4.6 milyan oo shilin maadaama ay siteen agab loo adeegsado sameynta droogada tani oo lid ku ah xiriirka wadanka qareenka difaaca lamaanaha ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu yahay mid aad u adag oo xadda fah marka laga soo tago adeemaha loo horkeenay garsooraha daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo dafaha caalamka aan idinkaga haynay wararkeena maanta waxa idin soo saaray oo idin akhrinay anigoo ah Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah